waaya bismillaah alxamdulilah mahad iskale waxaan hore usoo qaadan hordhac ku saabsan maadada biology-ga maxaa la dhahdaa biology form 4 ayaan soo qaadanay insha allah waxaan rabnaa hadda haddii ilaahayno inaan buugka ka bilaawno chapter koowaad nervous system and the sensory organs ayaan insha allah ku falaqay doonaa ilaa wuxuuna ka kooban 1.9 waxaan ugu dambeeya sensuska ka kooban yahay ilaa sensuska chapterka labaadna waa endocrine system waa chapterka labaad chapterka saddexaad insha allah skeletal system skeletal and muscular and documentary system aan ku baran doonaa chapterka xigan waxaan ku baran doonaa haddii ilaahayno genetic material and protein synthesis ayaan insha allah ku baran doonaa chapterka xigan waxaan ku baran doonaa genetics ayaan ku baran doonaa biotechnology iyo biodiversity ayaan ku baran doonaa haddii ilaahayno waayahay chapterka koowaad bismillah nervous system maxaa la dhahdaa nervous system haddii aan bilaawno nervous system waa dareen wade ana sense organs iyo xubnaha dareenka ogaada ayaan insha allah ku baran doonaa sense organs marka nervous system iyo sense organ nervous system maxaa la dhahdaa nervous system iyo neuron maxay ku kala duwan yihiin maxaa lagu aqoonsadaa haddii waxaasoo dhan aadan fahansanayn bariis ku laaba cashirka kow ah ee introductionka guud aan uga hadalnay kaasoo aniga aan diyaariyey oo si guud aan uga hadlay kaas insha allah kullaa waad fahmaysaa kan nervous system is a highly organized network waa koox habaysan oo sarreysa waa haye of cells oo unugyo ah daataasoo detectors waa maxay daataasoo detectors waa maxay difaacda changes waa maxay isbedelada daataasoo detectors waa maxay ka hortagta changes isbedelada ana controls maamusha metabolic process waa maxay shaqooyinka isbedbedelka jirka ka dhacaya ay ka hortagta metabolic waa maxay process nidaamyada dheefshiidyada ee jirka dhacaya catabolic anabolic ay maamushaa soo kale mental maskaxiyan qofku ay maamushaa physical activities shaqooyinkiisa muuqdan way maamushaa waayo maskaxda ayaa haddaadan maskax lahalayn maadan soco lahayn ilaan waxaa ku socotid waa caqliga iyo maskaxdu ilaahay ku siiy subxaana watacaala marka waa ka marka ana physical activities iyo shaqooyinka muuqda ana maintain waxayna joogtaysaa soo kale homeostasis waxaa loo yaqaanaa sida caadi markaan u hadlayno internal environment of the body becomes stable internal environment of the body gudaha jirka inuu noqdo internal environment of the body waa maxay gudaha jirka inuu ahaado becomes stable mid xasilan inuu ahaado ayaa loo yaqaana taasa loo yaqaana internal environment of the body becomes stable waayo kaasa loo yaqaana waayo marka homeostasis inuu noqdo the ability soo kale awooda of the nervous system-ka terminator waa maxay oo wax ku maamulaan respond ugu jawaabayo to changes isbedelada in the surrounding ku akareysan bas isbedeladaas waxay akaraan laba mid external kuwa dibadda ugu yimaado internal waa maxay iyo kuwa gudaha ugu yimaada depends on iyadoo loo tiirinayo the transmission waa maxay baahitaanka of the signals ee fariimaha within a neuron dareenka gudihiisa ana form waxayna sameeyaan neuron ay sameeyaan to an other cell unugyada kale ay la sameeyaan waayo marka kaasaa loo yaqaanaa the transmission baahida of maxay baaha signals fariimo signal maxaa fariin dhambaal maxaa fariin wa within a neuronka gudihiisa dareen wadaha ayaa ay ku baahayaan ana form waxayna sameynayaan neuron ay sameynayaan tu waxayna sameynayaan an other cell unug kale the nervous system is made up of wuxuu ka samaysan yahay billions ama balaayiin of highly specialized cells unugyo aada u sarreeya oo kole loo yaqaan neurons ayuu ka samaysan yahay haye wad maxabaa dhaha the neuron consist of ay ka koobayiin what are their types waa maxay noocyadooda waaye what is the nerve impulse maxaa raadaa what is the mechanism hababka uu ku baaha nerve mechanism hababka uu ku baaha dareenka waa maxay what are the main parts waa maxay qaybaha ugu waaweyn of the nervous system what are their function waa maxay shaqadoodu what are the most important health waa maxay problems dhibaatooyinka ugu muhiimsan ee caafimaad oo ay leeyihiin waa maxay nidaamyadan tan ah daadkuwaasoo aka ka dhaca in the nervous system ay ka dhaca waa maxay you will be able waxaad awoodi doontaa waxyaabaan to answer any of this question su-aalahan waad awoodi doontaa u leeyahay and other iyo kuwa kale after study markaad diraasayso this chapterkan kan markaad diraasayso waaya after the end dhamaadka chapterka ardaygaa laga rabaa kuwaan waxaanu aqristaa waxay kaa saacidaysaa inaad wax badan ka ogaato cashirka marka waa inaad ogaataa waxaanoo dhan
describe qeexitaanka structure structure and the types of neuron waa inaad taqaanaa waa inaad qeexi kartaa markuu jabtarka dhammaado waxaasna waa inaad awood u samayso saas soo khulaasaysaa electrical and chemical condition xaaladda xaaladda kiimikeed dataas oo characterize lagu soocayo resting potential marka waxaas dhan waa inaad aqoon yeelato adii si akhriso waaye the nervous system marka maxaa rahda marka nervous system nervous tissue nodayaasha dareenka is a composite of waxay ka samaysan yihiin neuron dareen wada ay ka samaysan neuron maxaa waa dareen waa gaariga jirka weeyaan ana neurologilla iyo kuwa aan dareen lahayn neurologilla waxaa loo yaqaanaa kuwa aan dareenka lahayn ayaa waxaa loo yaqaanaa neurologilla marka neurologilla waxaan leenahay kuwa aan dareenka lahayn ayaa loo yaqaana ama dareen laawe ayaa loo yaqaana neurologilla kuwa dareen laawayaasha ah neurons ama nerve cells oo isku macnee are the working unities waa maxay waa cutubyo shaqaynaya of the nervous system uu leeyahay are the working unities waa maxay waa cutubyo maxaa waa qaybo shaqaynaya weeyaan ofyan iskale nervous system ayaa iskale daad kuwaasoo generate dhaliya ana transmit gudbiyana maxay gudbiyaan daad kuwaasoo generate dhashta ana transmit gudba impulses dhambaal ay gudbiyaan kuwaasa loo yaqaan marka kuwa dhambaal maxaa fariimaha gudbiya marka waa kan hal mar haddaan ku celina neuronada ama nervous cell oo isku macnee maxaa loo yaqaan marka are the working unities waa maxay waa kooxo shaqaynaya weeyaan of the nervous system uu leeyahay daad kuwaasoo generate dhashta ana transmit gudbiya nerve impulse ay gudbiyaan waa halka neurologillahana do not conduct ma gudbiya nerve impulse dhambaal dareemeed ma gudbiya instead halkaa laakiin waxay ka samaynayaan they support way taageerayaan yay taageerayaan nerve cellkay taageerayaan neuronka they support way taageerayaan ana protect waa maxay kadibna ana protect way difaacayaan the nerve cell oo neuronka ay difaacayaan shaqadaas iyaga ay qabtaan sida caadi marka laga hadlayo ana protect way difaacayaan yay difaacayaan ana protect way difaacayaan waxay difaacayaan the nerve cell or neuronka ay difaacayaan waa structure of the neuron cashirkeena saddexaad haynoo ahaado wabillahi tawfiiq